Asalaamu calaykum. Gabar dhalinyaro ah oo Sacuudiyaan ah, 35 sano jir ah, macallimadna ka ah dugsiyada hoose mid ka mid ah, ayaa waxay isguursadeen wiil dhalinyaro ah isku da' yihiin. 2 sano ayay isqabeen, waxba isumayna dhalin. Ilaa markii dambe dhakhtaradda ay ugu bishaaraysay macallimadda inay xaamilo tahay. Macallimaddana aad ayay u faraxday. Markay dhashay ka bacdi, ninkeeda ayaa guriga keenay khaadimad Eeshiyaan ah si ay u saacidayso macallimadda, ayna u hayso xanugoodan ay u bixiyeen Muxamed. Khaadimaddana waxay ahayd midaan muslim ahayn. Macallimadda markay ka baxday umusha kadib waxay ku laabatay iskoolkeedii, laakiin nasiib darro muddo 3 bilood kadib waxaa loo sheegay geerida Muxamed oo 4 bil keliya jiray. Macallimaddana aad ayay uga murugootay waana ay ilmaysay. Waxa ay samaysay ayayna garan weyday. Jaariyadan ayaa macallimadda mar walba kula hadli jirtay hadallo jalacsan si ay uga khafiifiso murugada hayso. Waxyaabahaas oo ka dhigay macallimadda inayna ka shakinin jaariyadda inay wax lug ah ku leedahay geerida wiilkeeda. Maalmuhu waa ay socdeen. Macallimaddana waxay dhashay wiil labaad. Wiilkana waxaa loo bixiyey Muxamed. Macallimaddan oo ka xumaatay kana naxday dhimashada wiilkeedii hore ayaa Rabbi iska tala saaratay subxaanahu wa tacaala. Canugeedan labaadna isaga tagto shaqadeedii aaday. Laakiin bil ka bacdi waxaa loo sheegay dhimashada Muxamed. Macallimaddii aad ayay uga naxday. Dhakhaatiirtuna waxay sheegeen inaysan garanaynin sabab gooniya ilmahan ay u dhinteen, ayna yihiin qadar Alle subxaanahu wa tacaala. Macallimaddana mar kale xataa hal ilbiriqsi kama ayna shakinin jaariyadda, maxaa yeelay jaariyadda waxay ahayd qof ka adag shaqada guriga, akhlaaqdeedana ay ahayd mid wanaagsan. Bilooyin ka bacdi, macallimaddii waxay qaaday uur, laakiin markan jaariyadda ayaa u timid waxayna ku tiri waxay macallimaddii la yaabtay. Jaariyadda waxay tiri waxaan doonayaa inaan isaga tago Sacuudiga, in aan soo noqdana ma doonayo, waxaa xanuunsan hooyaday. Macallimadda ayaa ku tiri waxaan keenayaa jaariyad kale, waxaana kaa doonayaa muddo asbuuc ah inaad la joogtid, shaqada gurigana aad bartid. Waxay keentay jaariyad cusub, shaqada gurigana isbuuc ayaa lagu barayay. Macallimadda ayaa jaariyaddan baxaysa ku tiri inakan suuqa inu aadne, waxaan doonayaa inaan kuu soo iibiyo hadiyado adiga iyo qaraabadaada. Waa israaceen. Macallimaddana waxay u soo iibisay jaariyaddan tagayso hadaayo fara badan, iyada iyo qaraabadeeda waxna kama aysan qaadin. Jaariyaddan cusub ayaa aad ula yaabtay. Mar jaariyaddan baxaysa isku aadisanaysa alaabteedan faraha badan, jaariyadda cusub ayaa u soo gashay macallimadda, geesahana iska fiirisay, iriddana xiratay, oo macallimaddii ku tiri waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego. Macallimadda ayaa tiri ii sheeg. Jaariyadda cusub ayaa tiri hadda ka hor wax ma soo dhashay. Macallimadda ayaa tiri haa, 2 cunug ayaan soo dhalay, 2 cunugna waa iga dhinteen. Jaariyadda cusub ayaa ku tiri ma garanaysaa sababtaas? Ma aqaan bay tiri. Jaariyadda cusub ayaa tiri maalin dhowed marka hadiyooyinka faraha badan aad u iibinaysay middan kale, aad ayaan ula yaabay sida wanaagsan aad ula mucaamilayso, waana u dulqaadan waayey, maxaa yeelay waxaan ahay aniga muslimad, doonayo inaan kaa qariyo xaqiiqada. Aniga waxaa igu tiri jaariyaddan baxayso maalin maalmaha ka mid ah, haddii aad doonaysid aniga camalna aad tahay, ilmahana aad neceb tahay, inaad haysan ay ku dhibayso, waxaa suurtagal ah oo aad samayn kartaa wixii aniga aan sameeyey. Ilmaha waxaan ku sameeyey mid walba ka mida maskaxdiisa ayaan ku muday cirbad sumaysan, sida ayaan uga takhalusay. Adigana sidaa oo kale waa uga takhalusi kartaa haddaad ka mid tahay dadka ilmaha aan jecleen hayntoodana ay dhibayso. Macallimaddii markay intaa maqashay waa ay oysay, waana ay qaylisay, hadallo fara badanna way ku hadashay, xaalad wareer ahna waa ay gashay. Dhabannada ayay gacmaha saaratay. Markii dambena waxay wax ku dhufatay jaariyaddii baxaysay oo isku diyaarinaysay safarka. Waxa ay ku dhufatay jaariyaddiina way sheegan weysay wixii ay geysatay. Waxay tiri middan cusub ayaa iga masirsan, waxayna ka masirsan tahay hadiidahan faraha badan aad ii iibisay. Habeenkii ninkii markuu yimid ayay macallimaddii u sheegtay wixii maanta dhacay. Ninkii ayaana aaday booliiska, wuxuuna waday 2 shaqaalo. Booliiska markii loo tagay ee arrintii baareen, waxay dembiga ku soo ogeen macallimaddii oo waxay wax ku dhufatay jaariyaddan iyadoon waxba haynin oo caddayn ah. Dhakhaatiirtuna ay sheegeen ilmahan sababta ay u dhinteen aan la garanaynin. Macallimaddana waxa ay go'aansatay markaa ka bacdi inay isaga tagto shaqadii macallinnimada, halkaana ay isaga dayso gurigeedana ay ku ekaato, ilmaheedana iyadoo ay barbaariso ayna haysato, ayna ku filnaadaan wixii iyada soo maray. Walaal, haddii qisadan aad ka heshay ku cajab gelisay, fadlan like saar, nagu soo xirnaa oo subscribe dheh. Afmaal Studio mar walba soo booqo, gambaleelkana furo si aad u heshid wax walba oo cusub. Meel walba adduunka ka joogtidna waxaan kuu rajaynayaa amni iyo ammaan. Dadka qisooyinka jecel haddaa ka mid tahayna fadlan sii faafi, sheergaree, meel walba aad ku sheergareyn kartidna ku sheergaree.
mahadsanid.